sheekhuna xaggayga su-aasha ugu dambeysay waa gabar walaasheen ayaa inoo soo qortay su-aashan waxay leedahay sheekh hooyaday aad baan u jeclahay waxaan ahay gabar oo aad u baari ah hooyaday baari baan u ahay hooyaday ciyaal badan bay dhashay howsha gurigana anaa u hayaa marar qaarkood yacni guriga ilmaha wax walba ana hayaa laakiin dhibaata ayaa jirta tiri guur baan rabaa inaan guursado mar walbo aan isku dayo arrin guur inaan kala hadlo hooyo arrintaas aad bay u dhibsanaysaa oo ma rabto inaan guursado iyadoo rabto inaan ciyaalka la koriyo marka anigoo hooyadayna jecel aanan rabin inaan caasi ku noqdo hooyaday aan jeclahay baarinimada aan u falaayo dhinaca kalena aan jeclahay inaan reer yeesho hooyo ay raalli ka ahayn mar walbo aan guur iyo arrimihiisa markaan kala hadlo marka sheekhow maxay ula talin lahayd arrintan anoo rabo inaan labadaba waafajiyo insha allah falyatafadal mashkuura sheekhuna الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جعلك أتعشى هاي ويدا إلهي سبحانه وتعالى يبار لماذا أدبارك أتهي إلهي سبحانه وتعالى مالك قيامك ومقضيه ندى اللبات مسؤولية دار ولا لها أوها يسير عاوين يسو أذيقنا مارين عن مانتا ينبال وعاوين دونا بإذن الله سبحانه وتعالى حصل يشيء إندهنا وي رالي بين نقدر إندهي calooshina raalli bay noqotay oo cunto wadaysataa laakiin baahidii kale ilaahay dadka ku abuuray ayaa markaad damacdo in aad guursato ayaa hooyo ayaad moodaa inay meel kala fiirinayso waxaad eegi doontaa insha allahu tacaala aad fiirin doontaa waxaa laga yaabaa hooyada in ay ka baqayso in aad ka fogaato taladaan ku siinaya waxaa weye carruurta waa meeqa aad korinayso een hooyo la hayso hadday 5 yihiin wiil weyn oo carruurta ugu weyn haddaan keenno oon korsanno ka waran ku dheh hooyo carruurta nin ka weyn oo nala caawiya waxaan ka wadaa ninka aad guursanayso waxaad ku dhahdaa walaalo waxaan doonayaa inaad gurigan lagula noolaato maxaa yeele hooyada kama maarmo hooyana waxaad ka dhaadhicisaa u dhahdaa hooyo waxaan rabaa wiil weyn inaan guriga keeno markay ku dhahdo hooyo wiilka weynaad keenaysa waa maxay waxaad ku dhahdaa hooyo haddee inaan kaa tagana ma rabo inaan guursadana waan rabaa marka qolkaas yar een anigu seexdo ee ciriiriga ah wiil aniga 2 sano iga weyn oo ila seexdaan rabaa oo reerka ka mid ah adiguna ay hooyo u noqoto caqli isticmaal waxaa laga yaabaa hooyo waa qof weyn inay wax badan ay dareento waxaa laga yaabaa inaad adigu tahay qof dabeecad adag oo marka aan awood u lahayn hooyadeed inay waxan ka dhaadhiciso waxaa laga yaabaa inaad tahay nooca xishoodka badan oo aan awoodi karin hooyadeed waxa inay ka dhaadhiciso waxaa laga yaabaa hooyada inay tahay qof dabeecad adag oyba ka baqaysaba maxaa la yidhahdaa inuu dhib kaa soo gaadho kullu daalika waxaasoo dhan waa wax iska waarid oo iska macquula adigaana duruuftaada iga garanaya waxaanse ku dhihi lahaa hooyadaa ka dhaadhici una sheego waxaad dhahdaa hooyo away hooyada awa aabbaha awa walaalaha hadday ku dhahda adduunka meelay ka kala joogaan hooyo maxaad oola joogi weyday ooga soo tagtay maxaa kugu dhacay soo hooyadaa ma jeclid oo walaalaha maada jeclayn hadday ku dhahdo haddii hooyo waanba guursado aabbaha baan guursaday saasaan oga soo tegey waxaad ku dhahdaa hooyo ani laftay miyaa dareemaynin aabbahay oo kale inaan guursado caqligaa isticmaal ilahina waxaan kaaga barya subxaana watacaala inuu wanaagga uu kugu abaalmariyo baarinimadaasi natiijo fiican baad helaysaa wallahu aclam